baato muddo dheer qaadatay oo ay sababeen ciidamada Somaliland oo khasab iyo gardarro iyo ku jooga deegaanada markii dambana bilaabay inay laayaan oo mid iyo koox u laayaan shacabka reer Laascaanood taasina waxay keentay inay ka dagaalamaan dadkani oo iska celiyaan dulmiga guulana waa ka gaareen kuwa kalena waa ka gaari doonaan ilaahay idinka anaguna waxaan rajaynaynaa inaanu guulahooda si dhamaystirno waana insha Allah ta'ala ku guuleysanana oo ka saarana deegaanada ay ku joogaan gardarrada ciidamadaasi adinku hadatihin SSC in aad kaliya diidantihiin siyaasadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo hadii madaxweyne Muuse uu xilka maanta ka daga hadii aad rutiin Somaliland inteeda kala la sii shaqeystaan bal arinta ka war walaal waxa kama jiraan arinta dadweynaha reer SSC Khaatumo waxay aaminsan yihiin midnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo calankeeda buluuga mana aqbali doonaan kala goynta Soomaaliya marnaba kuma aanan midaysnayn fikir Soomaaliya in la kala gooyo ciidamadeeduna xaq kuma joogin inta dulmiga ku joogeen markay soo galeen dulmiga ku yimaadeen waa la ogaa sida looga barakacay baa la ogaa isimada deegaanadeeni siday inta badan halgan ugu jireen inay tanoo kala timaado oo laga saaro deegaanadan baa la ogaa marka arintaasi waxa kama jiraan weeye walaal dadkani waxay aaminsan yihiin midnimada Soomaaliya iyo qarannimadeeda waayahay gudoomiye wixii ka horeeyay 2023 bishii Janaayo waxa kamid ahaydeen Somaliland sida la sheegay inaad ku qanacsanaydeen imankana waxa sheegtay ciidamada Somaliland inay dulmi ku joogeen magaalada Laascaanood ee gobolka Sool maxaa isbedelay maya kama aanan qanacsanayn ciidamada Somaliland Laascaanood ay ku qabsadeen waa la ogaa awal military bay ku soo galeen oo ku qabsadeen mujtamacii maatada ahaayo marka joogay dawuu iska aqbalay in ciidamo haystaan oo deegaankiisii laakiin aqbalid iyo ku qancid iyo marnaba ma aaminsanayn dadka deegaanadani kala goynta Soomaaliya iyo wax la yiraahdo Somaliland oo gaar u taagan iyo xitaa maamulkeeda inay kamid noqdaan waxay aaminsanaayeen midnimada Soomaaliya intaana waa u halgamayeen maantana guushoodii waxna waa gaareen waxna waa u dhow yihiin walaal waayahay xilal badan baad kamid ah aad ka hayseen dawladda Somaliland oo uu kamid yahay gudoomiyaha golaha baarlamaanka Somaliland golaha wakiilada Somaliland taasi maana lees oran kareyna waa qanacsanaan ka timid beesha dhulbahante maya maaha beesha dhulbahante maaha qof xil meel ka haya mudane Cabdirasaaq Khaliifna nin oday oo mas'uul oo sharaf leh oo duruuftii markaa jirtay isdiiray dadkaaga dhibaatada kaga khafiifi duruuftii uu isdiiray dhibaatada kaga khafiifi dadkaaga oo wax fududeena inta la gaarayo xilli ay dadkani talada soo gaarayaan haduu isdiiray ayna noqon weyday oo dadkiisii dil iyo barakicin laga deyn waayay isna markaa uu yiri wax fududee baan islahaa inta la gaarayo xilli ay munaasib tahay in la tashado taladiisii ku haboonayd buu qaatay marka duruuf uu islahaa dadkaaga ka fududee baan anu ku fasiri karaa laakiin noqon weyday tan taladiisii saxda ahayd uu qaatay dadka SSC Khaatumana ma aha qof iyo 2 iyo 10 iyo 20 xitaa meel jooga ma aha waa ummad dhan oo gobollo badan degta oo maxaa la yiraahdaa hoggaan dhaqan leh oo hoggaan cilmi leh oo hoggaan iyo waxgarad kale leh marka ma aha sidaas waa gartay dadka kale ee deegaankeedan la wadaagay aan ahayn dhulbahante ayagu sideed aragtidii ugu qancin kartaan in aad noqotaan maamul goboleed kamid ah Soomaaliya dadweynaha SSC Khaatumo waxay ku jiraan halgankii ay kaga xoreynayeen deegaankooda ciidamada dulmiga iyo xaqdarrada ku jooga oo naftooda iyo maalkooda iyo shacabkoodaba taadiga iyo xadgudubka kula joogay wayna iska xoreynayaan wixii kalena waa looga gudbayaa xilligooda insha Allah waa gartay gudoomiye cid walba oo Soomaaliyeedna anagu ehelnimo iyo wanaag iyo walaalnimo gaar ahaan dadka inala degan oo deegaanada nala degan ehelnimo iyo walaalnimo iyo wanaag hayna waayahay gudoomiye diyaar mu tihiin in aad wada hadal la gashaan Somaliland si aad ugu bandhigtaan rabitaankiina in aad Soomaaliya ama Soomaaliyeed ku qanacsan tihiin Soomaaliya ku qanacsanahay miyaga wada hadal kala galeynaa cidna taas wada hadal kala galeeyno cidna marti uga manin Soomaaliya ku qanacsanahay waa ku qanacsanayn waanahay weliga ahayn asalkii Soomaaliya inaanu nahay baan aaminsanay marka wax wada hadal cid laga galeeyo ma aha waa wax
aanu asaliyan u nahay. waayahay gudoomiye waxaa lagu doortay inaad u noqoto gudoomiye golaha dhexe ee SSC Qaatumo maxaa ku qorshaysan? waxaan noo qorshaysan walaal sidaan sheegay si dhamaystirka halgankii ay bilaabeen shacabka iyagu iyo kamida dhalintiisa iyo wixii kale oo danahooda ah inaanu sii maamulno oo samata bixino oo ku furno oo qalanta dadka iyaga. waayahay booskii uu baneeyay Cabdirasaaq Khaliif oo ahaa gudoomiyaha golaha wakiilada waxaa mar kale ku fadhiistay Faratoon oo isla beeshaada ka soo jeedo. halka waran Faratoon wax wada hadal ama la galaysan oo arrimaha ku saabsan? anagu deegaanka iyaga iyo qadiyadayada iyo waxa aanu xaq u leenahay cid hadal kala gelinayno waxa xaq u leenahay oo dhulka iyagana anaga qadiyadeedana anaga xaq u leh waxaan aaminsanahay waa waxa aan ku sheegay. marka waxa cid hadal loogala galaa wax keenay ma jiraanba. nimanka ciidamadoodu si nabadgelyo deegaanka haday uga baxaan oo si nabadgelyo ah soo dhaweynayna deris baan nahay waa dad Soomaaliyeed wanaagan la jecelnahay dhibaatadooda iyo xumaatadooda ma jecelin laakiin haday ka bixi waayaan iyaga kalifay duruufta. waa gartay gudoomiye xaaladihii ugu dambeeyay gobolka iyo colaadaha ka taagan bal warbixin naga sii. colaada kama taagna hal colaada ka taagan waa colaada ciidanka gardarada ku jooga oo ka wada deegaanka iyo dadka xaq u dirirka ah oo shacabka reer SSC oo iska caabiyaya kana saaraya deegaankooda. marka colaada baa jirta colaadaasina waji baadila iyo waji xaq ay leedahay iyaguna si khalad oo baadil ay ugu socdaan anagu laakiin si xaq ah ugu jirnaa waa ka gar leenahay deegaanka iyagii baan joognaa. haddana dagaalku mar kastana dhowrkii cishaba waa dhacaa haddana wejigiisa labaad oo xoreynta iyo kasaaridda ah baa la gelayaa insha Allah taala. waayahay gudoomiye dagaalka aad kula jirtaan ciidamada Soomaaliland qasaare intee leeg ayaa idinka soo gaaray tan intuu dagaalka bilowday? dabcan meel dagaal ka dhacay khasaare waa ka imanaya naf iyo maal iyo barakacba waa leeyahay laakiin shacabka iyagu intaas iyo in ka badanba waa ku talagaleen si ay isaga celiyaan dulmiga. waa gartay magaalada Laascaanood waxa ay mushkilada ka kacday daliil qorshaysan oo haldoorka lala beegsanayay daliilkii qorshaysnaa muddooyinka ugu dambeeyay ka dhici jiray haatan maxaa iska bedelay? Laascaanood mushkiladeedu waa joogitaanka ciidamada Soomaaliland oo dadkana xaq darro kula joogay markii hore iyo waxa aan ka soo fulin iyaga go'aankoodana aan ku joogin markii dambena dil iyo xabad ugu daray. marka mushkilada gobolkan ka jirta waa joogitaanka ciidamada Soomaaliland ay ku joogaan doonis la'aanta dadka deegaanadan. waxaan ku baaqayaa oo cid walba u sheegaya haday tahay madaxda Soomaaliya iyo beesha caalamka iyo cid walba in ciidamada Soomaaliland ay isaga baxaan deegaanadan si urursan oo degdeg ah ay uga baxaan. annagu hadii ay nabadgelyo kaga baxaan deegaanadayada inaanan dhibaato wadin aanan dagaalka iyo colaada aanan doonanaynin anagu aanan dooranayn ay tahay wax nala ku khasbay inta ay ka baxayaan deegaanadayadana aanan diyaar inaanu dulmiga iyo gardarrada iska caabino laakiin anagu nabadgelyo aan rabnaa deris wanaag baan rabnaa waxaan rabnaa horumarkooda aan jecelnahay deris wanaagooda dhulkooda iyo deegaanada ay degan yihiin inay u horumaraan hagaagan baan jecelnahay gardaradana diidayna gardaradana ninna ka yeelimay. waa hagaag daawadayaalkaasi wuxuu ahaa Jaamac Yaasiin oo dhawaan loo doortay gudoomiyaha golaha dhexe ee SSC Qaatumo oo qadka telefoonka igu waramayay. gudoomiye aad baad u mahadsantahay.